وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. أولا أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب مناسبة آد قيمها بدن اللو حفلدينا هيو كسو بيردي كون كان أو كسو بيري خير خلق الله وإلهي سبحانه وتعالى وصوصاري نعمة الكبرى نعمدي ويناد شرفت بدنيد النعموين كوردن أي كفر عميين ضماشاتك هلك اللوغو سمينا هيو وحمد النق إلهي أنا وحمد النق إنه وأقم هاد علينا انت كسر شقيسي جوش مقايضة مسؤول كإسكاله مضانع عبد ولي عبدي علمي runtii gruubkooda waa bari gruub maqaayadan oo lagu magacaabo sidii hadda gudoomiyuhu tilmaamay iyo inta soo abaabushay oo ay ka muuqato ilaahay rasuulkiisa jacaylkiisa inay jecel yihiin ilaahay rasuulkiisa ay ka muuqato runtii waa ku faraxsanahay inaan caawa idin kala soo qayb galo xafladda qiimaha badan leh ee qaayaha weyn leh ee intaanoo Soomaalidii ah mas'uuliyiin ay ku jiraan waaweyn ee waddanka Soomaaliya ka soo qabtay xilal waaweyn kuwa doonaya oo musharraxu uu ka mid yahay inay hadda waddankii wax u qabtaan madaxdii shacabka ama jaaliyadda Soomaaliyeed ee waddankan Turkiga oo mas'uulkii ugu sareeyay Sheekh Maxamed uu joogo oo halkan Ankara degan horay markii aanu imid hal sano ka horna halkan isaga iyo mas'uuliyiinta kaleeto ee Soomaalida halkan joogta ay sidan oo kaleeto igu soo dhaweeyeen iyo jaaliyadda Ankara gudoomiyahoodii iyo wafdigii ballaaraa ee aad iyo aad u sharafta badnaa ee iga soo galbiyey Ankara caasimadda oo yiraahdeen waxaan rabnaa inaad nabiga nala xusto calayhi salaatu wasalaam waxaana ku xusaynaa Istanbul aan ku xusaynaa iyadoo Ankara lagu soo xusay nabiga calayhi salaatu wasalaam munaasabadan oo kaleetana lagu dhigay ayay halkaana waxay ku muujiyeen sida ay isu garab taagan yihiin oo ay mid yihiin oo jaaliyadii Soomaaliyeed u mideeyeen uguna mideeyeen haddana shucuur aad iyo aad u sarreeyda oo ay ka muuqato maxabada nabiga calayhi salaatu wasalaam makhluuq la jeclaado axadka waajibka ay tahay isaga iyo intii raacda in la jeclaado waa rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa lagu qiimoobo oo adduunku qiimo uu ku leeyahay waa itibaaca nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu raaco oo ummaddu raacdo oo qofku raaco ayuu iimaan ku leeyahay uu qiimo ku leeyahay jacaylkiisu marka waa iimaanka mid ka mid ah wuxuu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam حديث بوحو يري لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده وفي رواية والناس أجمعين أحد كن إمر رمين هدي اللي يراد اللاد هو النفي للكمال يعني إيمان لما يستر اللقمه لنبو نقريا لكن أصل كي إيمانك والله لكن إيمانك سو كامل ماهن haddii macnaheedu waa saas la yiraahdo nafyu lil kamaali ayaa laadu faa'iideynaysa la yiraahdo saasay noqonaysaa iimaankiisu ma dhamaystirno kaamil maahan haddii la yiraahdo iimaankiyo dhamaana laga anfinayaana ayadana iimaanba mara qofkaas oo iimaanba kama asixinba waa nafyu li sixa marka iimaan bal lagama helin
qofaan aniga iga jeclaanin waalidkiisa iyo waladkiisa iyo dadkoo dhan aan iga jeclaan haddaadan naftaada ka jeclaan oo makhluuq oo dhan aadan ka jeclaan ilaahay rasuulkiisa iimaanba ma lihi baa xadiidkaa laftiisa imaamu bukhaari markuu u baabaysanayo wuxuu yidhi baabu xubu rasuuli min aliimaan buu yidhi baabkan waxaan u guntay nebiga jacaylkiisu iimaanka inuu ka mid yahay waxaana la yidhaha fiqhu lbukhaariy fii tarjamatihi yaa la yidhaah xadiidka fiqhiga uu ka fahmay imaamu bukhaari wuu baabaystaa markaasuu xadiidkii soo arooriyaa markaas buu wuxuu yidhi baabkan waxaan u guntay rasuulka jacaylkiisu inuu iimaanka ka mid yahay ayaan u guntay markaasuu xadiidkan soo arooriyey xubbiga marka waalidka iyo xubbiga owlaadda jacaylka waalidka iyo jacaylka owlaadda iyo jacaylka dadku waa kala duwan yihiin intaa waxaa ka sii weyn jacaylka ilaahay iyo rasuulkiisa ka weyn waxaan ka hadlaynaa makhluuqaadka axadka kuugu owlanimo badan inaad jeclaato waa ilaahay rasuulkiisa asagaa ilaahay wuxuuna yidhi annabiyu wlaa bilmu'miniina min anfusihim gaaladii lama sheegina fiirihe waxaa ilaahay aayadda qur'aankaa ku yidhi nebigaani mu'miniinta waa uga owlanimo badan yaha naftooda u yidhi waa ka jecel yihiin naftoodii waa ka jecel yihiin markaasay sayd cumar baa u yimid maalin nebiga calayhi salaatu wasalaam markaasuu yidhi ilaahi rasuulkiisa waa ku jeclahay naftayda maahana wax alla wixii iga soo haray waa kaa jeclahay markaas buu yidhi laa yaa cumar buu yidhi maya iimaankaagu kaamil maaha buu yidhi intaad naftaada iga jeclaanayso markaas buu yidhi ilaahay ku soo bixiyo xaqa kugu soo bixiyaan ku dhaartaye wax kasta waa kaa jeclaa xataa min nafsii naftayda xataa waa kaa jeclaa buu nebigu wuxuu ku yidhi al'aana yaa cumar haddaa iimaankaagii buuxsama buu yidhi al'aana kamula iimaanuka iimaankaagii hadduu dhammaystirma waa axadka keliyuhu adduunka lagugu weydiinayo inaad islaamka ku soo gasho oo haddaadan dhihin muxammadun rasuulullaahi islaam ma tihin waa axadka keliyuhu qabriga marka lagu dhigo lagu weydiinayo oo lagu leeyahay man nebiyuka nebigaagu waayo waa kuma qof kale lagu weydiin maayo oo makhluuq ah waxaa lagu weydiinayaa nebigaagu waayo khaaliqaagiyaa lagu weydiin man rabbuka waman nebiyuka haddaad ku guulaysata labadaas waxa ka dambeeya waa kuu fudud yihiin marka axadka saas lagu weydiinayo oo ilaahay saas u sharfay oo iimaankaagii adduunka wax lagu siiyey ugu qaalisanaa shardi looga dhigay inaad asaga rumayso oo asaga raacdo haddana lagugu weydiinayo iilka dhexdiisa markaad kaligaa tahay marka hooya ku dhasho oo aad ka soo baxdana dhegta lagugu dhibcinayo muxammadun rasuulullah ashhadu an laa ilaaha ila allah ilmagu marka uu dhasho waata dhegta midigta looga aadaamaa dhegta bidixdaana waa looga aqimaa si wuxuu maqlo ilaahay waxiditaankiisu ugu horreeyo iyo rasuulka risaaladiisa markaas ayaa waxaa dhegta lagaaga shubayaa muxammadun rasuulullaahi muxamed waa rasuulkii ilaahayo ogow muxamed waa rasuulkii ilaahayo ogow ayaa dhegta lagaaga shubayaa markaad qaangaarto ood saqiirnimo ka baxdana waxaa waajibba kugu ah inaad risaaladii nebiga calayhi salaatu wasalaam rumaydo inta ka horraydana ilmaha waata lagu tababaraa oo islaamnimadii la jeclaysiinayo caawa marka damaashaadkan aad u qiimaha badan ee ay u dhan yihiin jaaliyaddii soomaaliyeed ee turkiga mas'uuliyiintii ugu sarraysay iyo madaxdoodii iyo mas-uuliyiintii soomaaliyeed ah iyo marti sharaf kale qaybaha kala gedisan ee caawa halkan aan ka soo wada qayb galnay ilaahay hortiisa waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala u markhaati gashanaynaa camalkeenna halkan aan ku hayno inuu maxabbada nebiga yahay calayhi salaatu wasalaam nebiga jacaylkiisa inuu yahay inaan rasuulkeenna jecelnahay inaan doonayno
dariiqiisii wanaagsanaa inaan ku noolaanno kuna dhimanno ilaahayna uu nagu soo bixiyo waxaan aad uga xunnahay oo aan ka qiiroonaynaa gaalkii xunka ahaa oo nebiga caayay calayhi salaatu wasalaam iska dhaaf nebiga in la caayee awowayaalkii iyo hooyayaalkii nasabkiisu meeluu galo hal shay looma geysan karo lama caayi karo waxba lagama sheegi karo waqti dhib badan oo ciriiri badan islaamka haystay oo gaaladu nebiga dhibtay weliba dadkiisii ay dhibeen oo quraysho ay dhibtay oo afkii ku dhibeen oo addinkii ku dhibeen ayuu asxaabtii isugu yeeray markaasuu yidhi maanta waxaan rabaa nimankii quraysheed afkii ay ugu dhibeen shiciray ugu dhibeen ee ha la ii soo aruuriya shucaradaydii buu yidhi waxaa la keena xasaan binu haabit waxaa la keena kacab waxaa la keenay cabdullaahi binu rawaaxa raggii carabka dheeraay oo shucarada ahaa ayaa loo keenay markaas buu yidhi cabdullaahi binu rawaaxow uhju qurayshan buu yidhi quraysh caay buu yidhi afka ku caay siday noo caayayaan sida ay waranka u soo ridayaan kuwa u ridaya afka ay ku caayayaanoo shicirkaa raggii yaqiino u diyaarsada nebigu calayhi salaatu wasalaam markaasuu yidhi uhju qurayshan uhjuhum ayuu yidhi cabdullaahi binu rawaaxa waa caayay qurayshtii waa xumeeyey hajwiga waxaa la yidhaha diddu dammi hajwiga diddulmadxi weeye madxiga ammaanta didkeeda wey marka waa caay markaas cabdullaahi binu rawaaxa shicir dheer buu akhriyey meeshii uu rabay nebigu calayhi salaatu wasalaam ma uusa gaarsiin wuxuu u yeedha kacabna ma uusa gaarsiin meeshii nebigu rabay cabdullaahi binu rawaaxa wuxuu u yeedhay xasaan binu haabit xasaan baa goobtii la keena markaas buu carabka laalaadiyey carabkiibuu soo baxshay kiisahaa markaas buu wuxuu yidhi qad aana an tursiluu ilaa haada waxaa waqtiyowday oo dhowaatay inaad dirtaan libaaxaan saynta waraaryaya carabkiisiibuu wuxuu ka dhigay sayn libaax ayuu ka dhigay ilaahay rasuulkiisa hortiisa ilaahay buu raalli gelinayaa rasuulkana waa raalli gelinayaa calayhi salaatu wasalaam markaas buu yidhi libaaxaan inaad dirtaan saynta waraaryaya ayaa dhowaata buu yidhi markaas buu wuxuu ku dhaartay waladii bacataka bilxaq la ufriyannahum farya aladiim sida haragga qallalay dabayshu uga qararacsiido aan quraysh uga qararacsiinayaa maanta buu yidhi markaasuu ilaahay rasuulkiisu yidhi laa tacjal ha degdegin xasaanow fa inna lii fiihim nasaban nasab baan ku leeyahay nimanka buu yidhi kayfa binasabiin nasabkaygasay ka yeelaysaa ilaa mushkilaad ku dhacaysaa haddaad nebiga nasabkiisii wax ka sheegto aniga nasabkayga see ka yeelaysaa buu yidhi i'ti ilaa abi bakrin fa innahu aclamu qurayshin biansaabihaa buu yidhi sayd abubakar u tag asagaa nasabyaalka quraysh meel kastoo nasabkaygu galagaranaya ha kuu kala saareen si aadan nasabkayga ugu dhicin fiiri nasabkii nebiga sida loo ilaalina fiiri asaga in wax laga sheega bal iskaba dhaaf hooyayaalkii meeshay galeen aabbayaalkii meeshay galeen meel kastoo ku abtirsanayay ilaalimay kaa rabtaa kayfa binasabii buu see nasabkayga ka yeelaysaa sida abubakar u tag ha kuu saafi yeela nasabkaygii markaasuu u saafi yeela markii nasabkii uu saafi uga dhigo buu u yimid ilaahay rasuulkiisa markaas buu yidhi ilaahay rasuulkiisu waa i saafi yeelay nasabkaagii wallaahi la asullannaka kamaa tusallu shacratu min alcajiin ilaahay rasuulkiisa waxaan quraysh kaaga siibayaa sida cajiinka tinta ku dhacda looga siiboo kalaan kaaga siibayaa buu haddii tin cajiin ku dhacdo oo laga siibo cajiin soo raaci maayo tintiina kala harin mayso marka saasoo kaleeto ayaana cadxunna ku soo raacsiinayn adiga sharaftaada aanna meelna aana uga dhacaynin buu markaasuu fasaxay uhjuhum wa jibriilu macaka buu nimanka difaac oo xumee jibriilaana micigaagaa buu markaasuu si fiican u ammaano qasiidada dheeroo kutubta yani ummahaatu sita ku taalla oo ahayd maalan bahajawta muxamadan taas ayuu shicirkii si fiican ugu waxeeyey si fiicanuu nebigu raalli uga noqday markaas buu wuxuu ku yidhi
ninka la yidhaa xasaanow ilaah iyo rasuulkiisu waa kaa raalli noqdeen inta aad difaacaydo ilaah iyo rasuulkiisa aad difaacayda buu marka tani waa difaacii nabiga calayhi salaatu wasalaam gaalkaas nabiga wax ka sheegay inaanaan raalli ka ahayn oo aan ka xunnahay oon la qaban dhacoonayno oo jirkeennu xanuunsanayo taasaan ilaahay u marqaati gashanaynaa إلهي على الحبيب محمد وعلى الآل الكرماء ربي صل على الحبيب محمد وعلى الآل من هم الكرماء ربي صل على الحبيب محمد وعلى الآل من هم الكرماء ربي صل على الحبيب محمد وعلى الآل من هم الكرماء صلى الله عليه اللهم صل marka nabigeena jacaylkiisa calayhi salaatu wasalaam oo caawa aan isugu nimid oo aan isugu tahniyadaynayno aad iyo aadaan ugu faraxsannahay soomaalidii waddankan walaalaha aan nahay ee waddankeennii labaad ah ee Soomaaliya u danqaday mar ay danqasho u baahneed soo dhaweeyay garab istaagay gacan qabtay u gargaaray waa u mahad celinaynaa iyakana waxaan aad iyo aad haddana ugu sii mahad celinayaa madaxda jaaliyadda Soomaaliyeed sida ay isugu xiran yihiin isuguna xiran jaaliyaddii oo ay u mideeyeen oo ay hor socdaan ayadana waa aad baan ugu bogaajinayaa meesha wanaagsan oo ay maanta haddana ku midaynayaan nabiga maxabadiisa iyo difaaca iyo ka xanuunsashada ay ka xanuunsanayaan aflagaadada xunta ah iyo weynaynta ay weynaynayaan nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo maxabada ay muujiyeen aad iyo aadaan ugu ammaanaynaa waxaan leenahay jazaakumullahu khayral jazaa ayaan idin leenahay dadka kaleeto waa idinku dayanahayaan waa idinku sii dhiirigelinaynaa isku xirkaas iyo midnimadaas iyo walaaltinimadaas aad dhex dhigteen Soomaalida halkan joogta oo soo wada hilowsan oo hadday mas'uuliyiin yihiin iyo haddii ay yihiin bulshada qaybaheeda kala gadisan waddankan walaalahood gugasha uga dhigeen oo ay kula mucaamaloodaan weliba mucaamalo wanaagsan oo aysan ummadaha kale kula mucaamaloon waa in adunkuna sida aad hadda samaysay sii laba laabtaan aad iyo aadaan idinku sii boorinayaa waxaan idin leenahay jazaakumullahu khayral jazaa baan idin leenahay أحسنتم أحسن الله إليكم بان دين لأنه ما شاء الله كان مناسبة تنقيمها بدن وتعظيمين النبي عليه الصلاة والسلام تعظيم النبي التعظيمين إنه أيام وحان دون هنا وحان على مال وحويا سعد بان النبي وياه راوع أبوها دقال بكو راوع عمه مركو مساجكي سوقلي أيو أصحابتي ودموا اللي جوكتو وحو كيري قوموا إلى سيدكم سيدكي إنه يستاقبوا markaasay kulligood wada istaageen marka fiiri sida uu saxaabigaas nabigu u tacdiiminayay annaka midaan munaasabadaani waxa weeye tacdiimin nabiga aan tacdiiminayno isaga dartiis ayaan u istaagaynaa hal mar محمد يا رسول الله صلى محمد يا رسول الله صلى عليك وسلم المولى محمد محمد يا رسول الله صلى عليك وسلم المولى محمد يا رسول الله صلى محمد يا رسول الله صلى عليك وسلم المولى محمد محمد يا رسول الله صلى محمد يا رسول الله صلى عليك وسلم المولى محمد يا رسول الله صلى محمد يا رسول الله صلى عليك وسلم المولى محمد محمد يا رسول الله صلى محمد يا رسول الله صلى عليك وسلم المولى هجوت محمدا برا حنيفا هجوت محمدا برا حنيفا رسول الله شيمته الوفاء محمد عليك وسلم
وسلم المولى محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وسلم عليه شفاعة النبي إلهي النصيب اللهم صل على محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته